السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكرايم نودي قبل الكامل sheekadayna ayaa aad u howlgelina. Anigii hooyadayni aabahayni walaashay safar ayaa aaday. Tuulo yar oo xagga ku taala ayaa u soconay. Aniga magacaygu Maxamuud yaa la dhahaa, walaashayna Firdawsi. Xagga keen yar oo ku taala ayaa ku nasananay. Walaashay ayaa duurka ku carartay, anigana waan kasoo dabagalay. Sida aan soo dabagelayay ayaa si geed xaggan ku dhuumanaysa. Waa fiiriyay geedkiisa, waxaan arkay walaashay bahasha madaxa ugu dhignayd oo dhiig ku yaala. Waan soo dabagalay, waxaan arkay dhiig meesha ku yaala. Dhiigga ayaa si fiican u fuushay, waa dhiig. God weyn ayaa arkay. Godka weyn ayaa waxoogaa u soo socday. Godka markaa si fiican u fiirshay ayaa is yidhi godka ma gashaa mise hooyadii aabba u sheegtaa. Markii dambe godka waa isku tuuray. Godku wuxuu ahaa god aad u dheer. Waxaa ku soo dhacay biyo aad iyo aad u urayay. Biyaha saaid ayay u urayeen. Markaa waxaa fiirshay meesha ka soo dhacay. Waa meel saaid u dheer. Isla mar ahaanta waxaan isku dayay inaan socdo. Biyaha aad ayay u urayeen, waa socon waayay. Markaas dhulka ayaan ku dhacay. Dhulka markaan ku dhacay, meeshana mugdi bay ahayd, biyahana saaid u urayeen. Moobilkayga ayaa la soo baxay. Leerka ayaa daaray. Waan naxay markaan dhiig arkay. Cabbaar ayaa is soogsanaa oo meesha istaagsanaa. Markii dambe ayaa hore u sii socday, sida socodkayga u sii wato ama la sii raadiyo. Markaan in yar socday ayaa waxaa ka maqlay gadaal shanqar. Shanqarta markaan ka maqlay ayaa gadaal soo fiiriyay. Gadaal waxba kama arag, laakiin balse shanqar ayaa maqlay. Si fiican ayaa waxaasi u fiiri, si fiican waa arki waayay. Tartiib ayaa ugu soo dhawaanayay. Sidaa tartiib ugu soo dhawaanayay ayaa waxaan arkay wax meesha taagan. Aniga geesi ayaa ahaa, ma cabsan jirin. Markii dambe ayaa arkay wax iga yaabiyay. Isla mar ahaantaas waxaa arkay nin walaashay maskaxdeedii cunaya. Waa naxay markaan arkay nin walaashay maskaxdeeda cunaya. Waa shoogsanaa. Cabbaar ayaa meesha ka dhaqaaqi waayay. Orod ayaa isla ka baxsan ninka. Dhagax weyn ayaa madaxayga ku dhacay, ku dhufsaday. Taas ayaa ku dhintay. Hal maalin kadib waxaa la soo helay nin guri duurka ku yaala. Isla maanta hooyadeed ayay iskari ka mid ah ayaa gurigii soo furay. Wuxuu arkay 3 qof oo lagu dilo meeshaas. Asxaabey, hadda anigayna dhintay, waalidiinteeda la socodsiiyey. Meelaha ku jooga hadda lama hayo. Fadlan subscribe noo dheh. Please, waalidiinteedana iiga geeya. Habeen kasta 3 saac cishay ka soo dhignaa.